taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar oo gaaray magaalada caasimadda Addis Ababa ee dalka Ethiopia ayaa kulan gaar ah la yeeshay dhigiisa wadanka Ethiopia General Demlesh. Labada taliye ayaa kala saxiixday heshiis ku saabsan amniga Soomaaliya iyo Ethiopia maadaama ay yihiin daris ayna isaga xiran yihiin dano siyaasadeed oo badan. General Xijaar iyo General Demlesh ayaa ku heshiiyey in ay yeeshaan iskaashi dhanka amniga ah iyo sare u qaadista tabarta ama tababarada aqoonta booliiska labada wadan. Sidoo kale waxay isku raaceen labada dhinac in hadda kadib ay wadaagaan xogaha kala duwan ee la xiriira shaqada ciidanka booliiska ee Soomaaliya iyo Ethiopia. Heshiiskan ayaa la filayaa in loo sii gudbiyo madaxda sare ee labada dal si loogu wargeliyo loogana wada shaqeeyo dhaqangeliskiisa. Dowladda Ethiopia ayaa haatan xiriir wanaagsan la leh Soomaaliya kaas oo sii xoogaysanaya sanadihii dambe, waxayna labada dal sameeyeen isu soo dhawaansho iyo isbeddel ballaaran. Dhowaan ayay ahayd markii taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad oo isna booqday Addis Ababa uu heshiis la soo saxiixday dhigiisa dalka Ethiopia, waxaana sidoo kale isna dalkaas tagay wasiirka difaaca xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo la soo kulmay dhigiisa oo ay ka soo wada hadleen arrimaha ammaanka iyo dagaalka Al-Shabaab. Ethiopia ayaa qayb ka ahaa dalalka sida tooska ah uga qayb qaata howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, waxayna ciidamo badan ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo ka mid ahaa ciidamada ATMIS ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya.